horumarka iyo guushu waxay ka mid yihiin waxyaalaha ugu badan uguna muhiimsan ee uu hanqaltaago aadamuhu. inaad noqotid qof horumar ka sameeyay noloshiisa, ku tiirsan naftiisa, gacan qabta dadka ku hareeraysan, sidoo kalena wax ku soo kordhiya bulshadiisa, waa riyada aynu ka wada simannahay dhammaanteen. halganka iyo loolankana aan ugu jirno, laakiin nasiib darro 10% keliya aadamaha ayaa ka gaara nolosha horumarka ay ku taamayaan, halka inta soo hartay ay ku fashilmaan hardanka nolosha. haddaba maxaa dib u celiya? se maxay tahay sababta fashilka noloshu? muuqaalkeenna maanta waxaan ku soo qaadanaynaa daawadayaal 10 wax oo sabab u noqda fashilka iyo dib u dhaca nolosha. jooji inaad dayacdo salaada iyo guud ahaan cibaadada Alle. maalin kasta 5 waqti waxaan maqalnaa u kaalaya guusha. haddii aadan ka jawaabin isla markii 5 salaadood waqtigooda aadan tukan, ma jiro waqti kale oo aad maarayn karto. markastana waxaad ahaanaysaa qof mashquula, haddana aanay waxba u qabsoomin. jooji inaad naftaada been u sheegto, khiyaalina aad ku maaweelayso. nolosheennu waxay horumartaa keliya markaan fursadaha ka faa'iidaysanno. fursadda ugu horeysa uguna daran aan qaadan karno waa inaan nafteena daacad u noqonno, mar walba aan u sheegno hadallo ka fog riyo iyo mala awaal. jooji inaad waqti ku lumiso asxaabta xun. noloshu way ka gaaban tahay inaad waqti ku lumiso dad farxadda kaa qaada, noloshaadana aan waxba ku soo kordhin. kala garo nooca saaxiibada aad leedahay. saaxiibka xun keliya gadaal buu kuu dhigaa, halka kan fiicanna uu sabab u noqdo ilaahay ka sokow guushaada, kuguna dhiirigeliyo qaadidda tubta toosan. inaad ka cararto ama aad ka gabato dhibaatada waxay ka mid tahay sababaha soo dedejiya guuldarrada. wajah dhibaatada ilaa aad ka xalinayso ma ahan wax sahlan, mana jiro qof adduunka dhib la'aan ah. xaqiiqdii waxaana soo maray murugo, kadeed, kufid iyo dhaawac. nolosha ayaa sidaa ah, waxaa la rabaa in la wajaho, la aqbalo, laga feejignaado, lana xaliyo. tani waa waxa kaa dhigaya qofka aad rabto inaad noqoto. jooji inaad ceebaha dadka kale raadiso, kadibna aad samayso cambaarayn, cay iyo cillad sheegid joogto ah. xaqiiqdii tani waxay kaa hor istaagaysaa inaad dantaada mashquul ku noqoto, horumarna aad samayso. xaasidnimadu waa inaad xisaabiso waxyaabo qof kale alla ku manaystay aadna uga xumaato, intii aad adigu taada xisaabin lahayd. ka fogow xaasidnimada, kana dheerow eegidda dadka kale, kana dhigo naftaada mashquulkaaga koobaad. waa hubaal inaadan waqti u helin eegidda dadka kale. jooji caajiska, wahsiga iyo inaad iska fadhido. nafta oo aad siiso firaaqo badan oo ay isaga fadhido, ku fikirto ama hawl ku taalay aad ka wahsato waxay horseedaa burbur iyo fasahaad. ku mashquuli naftaada shaqo, wax akhris iyo samaynta wax faa'iido kuu leh. jooji inaad ka cabsato inaad khalad samayso. inaad wax samayso oo qaladdo waxay 10 jeer ka fiican tahay inaadan waxba samayn. guul kasta waxay leedahay fashil badan, fashil kastana waxaa hubaala inuu ku gaarsiinayo guushii aad rabtay ugu dambayn. jooji isku dayga inaad farxad iibsato ama dad kale aad ka raadiso. haddii aadan ku faraxsanayn qofka aad tahay iyo waxa aad haysato, ma jiro cid kale oo farxad ku siin karta iyo waxyaabo qaali ah oo farxad kuu keeni kara. waa inaad deganaan iyo qanacsanaan u abuurtaa naftaada. waxaa hubaala inaad markaa kadib adigu aad siin kartid dadka kale farxad. jooji inaad ku noolaato xasuusta wixii aad soo martay. wixii horay u dhacay waa taariikh, weligood ma soo noqonayaan. walwalka iyo xasuustoodu waxay kaa qaadayaan farxadda maanta. ilow wixii hore, dibna u bilow nolol cusub oo ay u tahay guushu saldhig, shaqaduna derbi ay u tahay. waxaa hubaala inaad daayahaaga ku arki doontid isbeddel aadan rumaysan karin. ugu dambayn ogow daawada in waddada guushu ay tahay waddo aad u dheer, u baahan dhabar adeeg iyo dulqaad. qodxaha yaal waddadaasna aad ku dhaafi kartid qorshe iyo yool cad oo keliya.